بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي قوى مختار شيخ آدم دلمر كترسن ورياشة كهول قلا مقالة بيدبو جماعة وناكسين دمانتين إذا لهانتين ميل كستو أدجوكتان وحان دونا يا مانتا وآن ربائنا إذا لقيب سوا أرمو دورة ومسكح دي كقوحي وايهان دمر إوسو نقنقني سومالي دا وحا أي تهي داد هذا الكجال سومالي دا وحا أي تهي داد mar walba waxa isugu gudbiya hadalka inkastoo qormooyin badan soo dhigay baraha bulshada oo aan ku wacyigelinayay bulshada intaba aan kaga libkeeni waayay maadaama ay tahay bulshadayda kuwo wax ku fahma hadalka waxaan go'aansaday in aan marxaladan maanta jirta aan ku gudbiyo qaab hadal ah dadka ay wax ku fahmi karaan ujeedka aan u soo galay maanta bartan lagala hadlo bulshada waxa ay tahay in aan ummadayda uga digo hogaamiyayaal matali doona bulshadooda oo caqabada ugu weyn ee Soomaalida maanta hortaaganna ay tahay 4.5 in waxna looga dhigo maanta koonfur galbeed waxa ay joogtaa marxalad tii ugu fiicneed haddana tii ugu xumeed koonfur galbeed waxa ay guda gashay maanta in ay xulato mudanayaashii matalayay baarlamaankeeda kuwaasoo wakiil ka ah bulshada degan saddexda gobol ee maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa liddi ku noqday oo mar walba ummadda rabitaankeeda ka hortaagan oday doonaya in uu qoro qabqable isagoon u fiirinaynin yaa matali kara bulshada yaa matali kara shacabka yaa ehel u ah dawladnimada yaa ka libkeeni kara siyaasadda yaa wax tari kara bulshadan u haraadan hogaamiye xaqooda u dooda tusaale maanta beelaha dega koonfur galbeed saddexda gobol baay bakool shabeellada hoose bulsho badan oo ku nool oo gaaraysa ilaa iyo 10 milyan Soomaali inteeda badan ah ayaa loo dooranayaa wakiilo matali lahaa baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed Soomaaliya odayga Soomaaliyeed ee saddexdan gobol u dhashay ee maanta mas'uuliyadda saaran tahay waxaa la gudboon kow in uu ka soo dhaxulo bulshadaasi siyaasi aqoon-yahan ah yaqaano xubinnimada u ordaayo waxay tahay xubinnimada loo ordaayo waxay tahay waa golo wakiil haddii lagu dhaho waa mumathal waa udoode waa xaqsiye waa ka shaqeeya rabitaanka baahida bulshada magacooda uu ku doonayay inuu ku qaato kursiga haddii oday beeleedka maanta uu ku qancaayo in uu wax ku bixiyo 4.5 bulshada ma cuntanto haddii 4.5 la yidhaahdo waxaa meesha ka baxayo ninkii istaahil ku ahaa booska waxaana soo gelaya niman istaahil ku ahayn tusaale ninka yaqaana baarlamaan ama xubin baarlamaan waxa ay tahay kaas ayaa ah kan matali kara bulshadiisa dadka siyaasadda dhiraandhire waxay yidhaahdaan constituency-ga marka loo ordaayo deegaan doorashada waa in laga helaa qof deegaan doorashadaas yaqaana waxa bulshadeeda ay rabto haddii ay dhacdo in nimaan garanaynin baarlamaanka waxa uu yahay iyo ujeedooyinka loo unka iyo baarlamaan waxa uu qabto loo qabto dadkii beritoole waxa uu noqonayaa kan ugu horeeya ee soo qaadaya waxa uu dhegta ka maqli jiray uu kaga maqli jiray baarlamaanadii aqoonta darnaa ee dalkeenna mooshin waxa uuna mar walba jeclaan doonaa inuu buuxiyo kooram waxa uu mar walba jeclaan doonaa inuu sameeyo xulasho fartaag waa kuu codeeyey ama waa kugu diiday ah asagoon cuskanaynin wax sharciyad ah haddii loo dooro ummadda aqoon-yahan yaqaana xubinta baarlamaan waxa ay tahay koow waxa uu samaynayaa ajandayaal iyo qorshayaal cadcad oo uu ku doonayo inuu wax kaga qabto baahiyaha bulshadiisa koow waxa uu raadiyaa marka uu noqdo ninka aqoon-yahanka xubin baarlamaan in uu dejiyo shuruucdii lagu hagi lahaa baarlamaankaas wuxuu uu sameeya ayaa ah mar walba in uu deegaan doorashadiisa ku celiyo waxa uu rabo waxa ay rabaan bulshadiisa oo ah inuu horumariyo beeraha inuu horumariyo caafimaadka inuu horumariyo waxbarashadooda
in uu sameeyo daryeel hooyada iyo dhallaanka waxa uu jecel yahay inuu hirgeliyo mashaariic dadka deegaanka uu u dhashay ee codka kalsoonida siiyey ay u baahan yihiin inuu ka hirgeliyo wuxuu sameeyaa wadooyinka wuxuu sameeyaa kaabayaasha dhaqaalaha hadday dekad leeyihiin dekadahaasuu u raadiyaa hay-ada ku sameeyo dib u dhis dayactir waxa uu ka fekeraa mashaariicda biyogelinta waxa uu ka fekeraa mashaariicdooda nadaafadda intaasna waxa uu ka raadiyaa hay-adaha iyo wasaaradaha ay xaqa ugu leeyihiin in ay la qaybsadaan saamiga ay ku leeyihiin dadka deegaankiisa ma aha maanta koonfur galbeed in loo yeeriyo xildhibaano gacan ku samaysa aan ka fikiraynin horumarka ay u socoto koonfur galbeed aan ka fikiraynin waxa ay rabaan bulshada deegaan doorashadiisa ma aha koonfur galbeed in loo sameeyo xildhibaano ka hiiliya horumarka dalka ee u hiiliya danahooda gaarka haddaba waxaa la gudboon bulshada koonfur galbeed odayaasheeda dhaqanka ee maanta haya saldanadda gacantana ugu jirto xulitaanka musharaxa qabanaya kursiga beesha uu u doorayo waa inuu ka fiirsadaa waa inuusan ku salaynin 4.5 waa inuusan ku salaynin adiga xubintaadii waxay jirtaa federaalka waa inuusan dhihin waa inuusan dhihin xubintaada golaha deegaanka degme hebel ay ka mid tahay waa inuusan dhihin waa inuu ku saleeyaa hebel ma yahay qof istaahila deegaan doorashadaas dadkeeda keeni kara meel muuqata kana soo qaadi kara meel ebera odayga dhaqanka ee maanta saldanadaas hoggaankeeda ilaahay u dhiibay qalinkiisa waxa uu ugu hiilin karaa mid burburiya danaha beesha uu ka dhashay haddii ay taasi dhacdana waxaa imaanaya dhibaato bulshadaas mar walba inay noqoto bulsho wehel u ah inay cabato barakacdo oon iyo gaajo haddii loo dooro xildhibaan beerahoodii dayactir in lagu sameeyo mashaariic u raadinaynin haddii ceelashoodii in la sameeyo uusan u ordayn haddii jiilkooda soo kacayo waxbarashadooda uusan u ordaynin haddii uusan u ordaynin in hooyada iyo dhallaanka ay wax qabtaan cudurrada baabi'inaya in laga daweeyo uusan u ordaynin inuu raadiyo minxooyinka waxbarashada ama scholarship waxa la yidhaahdo dhallinyarada deegaan doorashadiisa uusan u ordayn uu u ordayo wax uu dhuunta mariyo mooshin iyo xaggee wax ka dhacayaan waxa ay noqonaysaa fashil keeni karta dowlad daciif ah oo aan soconayn leh sharci dejiyaal dhuuntooda u feedan tahay oo keliya inay wax un ku dhibcaan maanta waxaa madaxweyne ka ah koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen sida uu u soo xulay wasiiro taya leh oo dowladdiisa laga dareemayo waa inuu maanta xoog iyo culays ku saaraa odayaasha dhaqanka in ay soo xulaan xildhibaano karti iyo taya leh aqoon leh fahmi kara wax madaxweynaha u yeerinayo ee aan docda kale ka bixin hadday taasi dhacdo waa u ayaan darro madaxweynaha lagamana filan doono in uu keeni doono baarlamaan sidaasoo kale ah mar walbana u taagan beritoolina aday kugu soo noqonayaan oo waxay noqonayaan dad aan damiir lahayn maxaa yeelay aqoon ma laha aqoon daruduna waxa ay keentaa in aragtida qofka la weecin karo dhinac walbana laga soo geli karo waxaa mudan in maanta la isla fiiriyo yaa istaahil ku ah booskaasi aan loo fiirinin yaa 4.5 ah 4.5ka wuxuu caqabad ku yahay horumarka koonfur galbeed 4.5ka dowladda dhexe hanaloo doodo oo 70 xildhibaan yaan waxba nalaga dhimin laakiin annaga dhexdeenna markay timaado koonfur galbeed ahaan yaan lagu xirin xildhibaanada imaanaya in ay ku yimaadaan 4.5 ha lagu xiro aqoon iyo aragti iyo hufnaan iyo biseel siyaasadeed musharaxiin fara badan oo wax tari lahaa dalkan ayaa maanta ka noqonaya inay noqdaan xildhibaano koonfur galbeed iyadoo odayaashii dhaqanka ay ku xireen 4.5 oo lagu leeyahay idinka beeshiina ama jilibkiina ayaa dowladda dhexe ama dowladaha kale ka mid ah ama maamul goboleedka xubno kale aad ku leedihiin haddii ay noqoto shuruudda waxaa meesha ka baxaya in ninkii istaahilka ahaa ee booskaasi u qalmay uu xubinnimadii ku waayo bulshadiisina ay noqoto kuwa liita isagoo wax tari lahaana oday ka hiiliyo dowladnimada koonfur galbeed uma baahna 4.5 ee waxay u baahan tahay aqoon-yahan karti leh deegaan doorashadiisa dadka ku jirana ay noqdaan kuwa u madax bannaan in ay dooran karaan xildhibaanka ay isleeyihiin wuu idin samata bixin karaa warkayga waxaan ku soo gebagabeynayaa koonfur galbeed ha u hiiliso xaqa iyo horumarka hana xulato xildhibaano aayaha iyo mustaqbalkeeda ka shaqeeya odayga koonfur galbeed ku noolna waxaa saaran mas-uuliyad ilaahay kula xisaabtami doona maalinta beritoola ah
ha u dooran deegaankaaga ummadda ku nool xildhibaan dhuuntiisu ay u foodan tahay kiish lacaga hadday taasi dhacdo waxaan ka haraynaa dowlad goboleedyada aynigeenna ah ee maanta jira waxaan ka haraynaa dowladnimada fiican ee maanta jirta waxaan ka haraynaa durdurka xareedda ee la dhamayo waxaan ka haraynaa dadaalka iyo howlaha adduunyada ay waddo ee dayaxaa la hiigsanayo ha noqdo hamigeenna mid ku xiran wax ka sarreeya xidigaha ha noqdo hamigeenna xulashada xildhibaanada kuwa wax ka bedeli kara xaaladda maanta taagan ha noqdo odayaasha go'aankooda yaa qaban kara xilkaas oo xaqa dadka ka maqan keeni kara ayaysan noqon yaa 4.5 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته